Dowladda Soomaaliya ayaa si kulul uga jawaabtay hadalkii madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, hadalkaas oo uu Ruto ku sheegay in Soomaaliya ay la wareegi doonto kooxda Al-shabaab sidii ka dhacday Afghanistan haddii laga saaro ciidamada shisheeye xilli uu booqasho ku joogo dalkaasi Mareykanka. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cali Balcad ayaa hadalkaas ku tilmaamay mid khaldan isagoo sheegay in Soomaaliya iyo Afghanistan aan la isbarbardhigi karin marka laga hadlayo tallaabadan. Dhaqdhaqaaqa aad ayuu uga duwan yahay kuwa Afghanistan. Bixitaanka ciidamada shisheeye ma horseedi doonaan xaaladaas oo kale. Awoodda aan saarno dariiqa gaarka ah ee Soomaaliya u marayso xasiloonideeda, ayuu yidhi Cali Balcad. Dowladda Kenya ayaa u muuqata inay dooneyso inay ka faa'iideysato dalalka xasaradaha amni darrada ka jiraan si ciidamada dalkeeda loo geeyo dalalkaas qaab nabad ilaalin ah, isla markaana ay ka hesho lacag. Dhowaan madaxweynayaasha dalalka Uganda iyo sidoo kale Kenya oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa waxa ay isku raaceen in xaalad halis ah ay ka imaan karto haddii ay ciidamadooda ka soo baxaan Soomaaliya, taas oo loo dhigi karo in haddii ciidamadooda laga joojiyo qarashaadka la siiyo ay Soomaaliya noqon karto meel ay ku soo laabtaan dagaalyahanada Al-shabaab. Ciidamada Soomaaliya ayaa isku diyaarinaya inay la wareegaan guud ahaan ammaanka Soomaaliya, iyadoo haatan ay Soomaaliya ka baxeen 5,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka ADMIS, waxaana dhammaadka sanadkan la filayaa in dhammaan ciidamada ADMIS ee ka jooga Soomaaliya ay iskaga huleelaan gudaha Soomaaliya. Xuseen Maxamed Sigane, Som Channel 365, Muqdisho.